xaalka dunida intii lagu yaqaanay waa dhaaftay waxaanay u muuqataa hadda dawlado waaweyn oo adag inay isu muuqanayaan ninkan odaga ah ee Vladimir Putin lagu magacaabo waxa uu hadda taagan yahay waxaan duqeynayaa saldhigyada dawladda Ingiriisku ay leedahay tan oo haddii ay dhacdo ay ka dhigan tahay dawladaha nuclear-ka markan in ay si rasmi ah isku haystaan afayeen u hadashay wasaaradda amuraha dibadda Ruushka oo la yiraahdo Maria Zakharova ayaa waxa ay leedahay waxaa la joogaa xilliga dulqaadka oo inaga dhammaan lahaa waxaana aan ku dhownahay in aan si degdeg ah u bilowno garaacitaanka saldhigyada dawladda Ingiriiska ay leedahay xaggee dunida u socota muxuuse madaxweyne Putin markan ka ganacsacay muxuuse yahay waxyaabaha walwal kale ee xilligan dunida ka jira ikhtiyaartayna la socotay si gaar ah ayaan u eegi doonaa arrintaana saaka wadankii Lubnaan ahaa qaybtiisa koonfureed waa gubanaysaa ciidamada Israa'iil ayaa jiha kasta ka weeraraya xisbiga ama Xisballahna waxay ku jiraan mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ee lagu tilmaamo in ay jiritaankooda iyo jiritaanka wadankaasba ay ku ilaalinayaan maxaa isbedelay maxaase ku dhacay heshiiskii lala galay dawladda Joseph Aoun ee magaalada Beirut fadhisa Israa'iil miyaanay wacad iyo ballan balahayn waan eegi doonaa khiyaarta ay nala socotay qodobkaana oo aan barnaamijka ku faaqadi doono dawladda Qatar saaka waxa ay fariin aad iyo aad xasaasi u ah ra'iisul wasaarahooda uu gaarsiiyay wadanka la yiraahdo Iran iyadoo kulan xasaasi ah uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Tehran oo ay isku fadhiisteen Abbas Araghchi iyo waliba wasiirka amuraha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar sidee wax u socdaan iyana waxaynu eegi doonaa dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka taagan gobolkaasi markabka diyaaradaha xambaaro ee Roosevelt oo Mareykanku uu leeyahay ayaa ku soo wajahan gobolka bariga dhexe Trump wali waxa uu muuqanayaa inaanu ka quusan tallaabooyinka dagaalka markabkan muxuu uga duwan yahay kuwa kale ee gobolka joogay oo ka mid yahay George H.W. Bush oo ka mid ah maraakiibta diyaaradaha ay ku raran yihiin ee gobolkaasi jooga Trump waxa uu doonayaa dagaal inuu galo maxayse yahay warka iyo sirta saaka ay sii daayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran warkii hore war soo dhaaf dawladda Ruushku waxa ay markan jeedinaysaa mid ka mid ah hanjabaadihii ugu kululaa waxaanay u jeedinaysaa dawlad ku gaashaaman hubka nuclear-ka waa wadanka Ingiriiska waxay leedahay waxaynu diyaar u nahay Moscow inaan garaacno saldhigyada dawladda Britain ay leedahay ilaa inta ay taageerayso baaliri wadanka Ukraine oo dagaalada iyo dhigbaxa ay ku sii fogeynayso wadankaasi Ruushka arrintani waxa iyo jawaabtan ay imanaysaa xilli maalmo kooban ay ka soo wareegteen markii agaasimaha guud ee CIA-da Mareykanka iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka wadankaasi Ruushka ay kulmeen taas oo muujinaysay in qaar ka mid ah xulafada Trump iyo gobolka bariga dhexe ee NATO ay dareemayaan walwal xoog leh iyadoo Putin uu markan doonayo dagaal kale oo tijaabo ah Moscow ayaa mar kale u degtay London in Ruushka uu bartilmaameedsan karo goobo iyo qalab military oo Britain ay leedahay oo ku yaala baaliri gudaha Ukraine iyo xitaa meelo ka baxsan dalkaasi haddii hubka Britain la siiyo Kiev loo adeegsado weerar ka dhan ah baaliri dhulka wadankaasi Ruushka afayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in dadka Ingiriisku ay tahay in ay fahmaan cawaaqibka ka dhalan karaysa siyaasadda military ee dawladooda waxayna ka digtay sii wadista taageerada military ee London si ay si toos ah Britain ugu reexi karto baaliri iskoorimaad ay la gasho wadankaasi Ruushka Zakharova ayaa si gaar u cambaaraysa go'aamada Britain ee ah in Ukraine ay la wadaagto xog farsamo oo xasaasi ah oo ku saabsan gantaalada ridada dheer ee loo yaqaan Storm Shadow taas oo Kiev ay sahli karaysa baaliri mustaqbalka inay gudaha u saarto gantaalada noocan ah Britain ayaa sheegtay in tallaabadan ay qayb ka tahay xoojinta awoodda Ukraine ee weerarada gantaalaha ridada dheer Moscow ayaa u aragtay taageerada noocan ah in ay muujinayso
kulug lahaanshiyaha sii kordhaysa ee London ee dagaalkaasi Ukraine. Sokorov ayaa sheegtay in haddii weerarada lagu qaado dhulka Ruushka iyadoo la adeegsanayo hub Britishku uu leeyahay, goobaha iyo qalabka military ee Britain ay noqon karaan kuwa bartilmaameeda oo aan laga weecan doonin. Hanjabaadda ayaa timi xilli ay u dhaxayso Ruushka iyo Ingiriiska, xiisadoodu ay xiriirkooda u galay baa la yiri marxalad aad u xun oo xasaasi ah. Dhinaca kale, digniinta Ruushka waxay sare u qaadaysaa walaaca laga qabo in dagaalka Ukraine uu si toos ah ugu fido dalalka NATO, inkastoo hanjabaadda Moscow ay samicnaheedu ahayn baa la yiri in weerar dhaba uu hadda dhacay ama la qorsheynayo, taas oo ka dhigan dowladdaasi inay durbabo wajahaysa baa la yiri khatar aad u weyn. ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqay asir in muddo banaanka u soo baxaysa jiraalkeeda. Afhayeenka ciidamada kacaanka ayaa ku dhawaaqay marka la joogo Mareykanka xilligan in uusan awood u lahayn sii wadida dagaalka wadanka Iran uu kula jiro, sabab la xiriira kaydadkiisa hubka inay ku dhaxeen dhiigbax aad u weyn oo Mareykanka xilligan uu taagan yahay qaati sidii dagaalkaasi uu uga bixi lahaa. ilaalada kacaanka Iraaniyiinta ayaa sheegay in Mareykanka uu markii ugu horeysay taariikhda wajahayo Iran ku yimid hubkiisa istiraatiijiga ah, halka Tehran ay sheegtay in ay wax yaraashaha kala kulmin awoodeeda gantaalaha. Afhayeenka ilaalada kacaanka Brigadier General Hussein Mahabi ayaa sheegay in Mareykanka uu dagaalka galay isagoo adeegsanaya dhammaan awoodiisa militariga, balse uusan ku guuleysan baa la yiri in uu dib ugu laabto marinka Hormuz ama uu awood u leeyahay in uu furaba. Muhabi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Isfahan ayaa sheegay in Washington ay markii dambe ku qasbanaatay inay dib uga laabato qaar ka mid ah qorshayaasheeda, inkastoo ay taageero ka heshay NATO iyo dalal kale oo Yuruba oo soo garab istaagay. Mareykanka markii ugu horeysay waxa uu wajahayaa yaraanshiyo hubka istiraatiijiga ah, ma awoodi karo inuu dagaalka isku mar ka wado dhowr jiha oo kala duwan, ayuu hadalkiisa ku yiri. Tanina waxa ay keentay dowladda Washington buu leeyahay in ay xilligan ku qasban tahay inay si degdeg ah isku dhigto. Afhayeenkana waxa uu intaas ku daray in ciidamada Iran aysan wax yaraashaha kala kulmin awoodda gantaalaha, isagoo ku andacoonaya in dagaalada Iran ay weli tahay kuwa aad muhiim u ah. xiisadda Hormuz iyo dadaalada diblomaasiyadeed ayaa weli socda, iyadoo dagaalka uu u muuqanayo haatan in uu ka sii dari karo marka la fiiriyo jihada rasmiga ah ay wax u socdaan. dowladda Qatar ayaa faahfaahin ka bixisay kulan maanta Tehran ay kula yeesheen madax kala duwan oo ka socda Tehran iyo Doha, isla markaana si weyn looga hadlay xiisadda dagaalada sii kordhaya ee gobolkaasi ka taagan. xukuumadda Qatar ayaa faahfaahin ka bixisay kulan ka dhacay magaalada Tehran oo dhaxmaray ra'iisul wasaaraha wasiirka amuraha qaarajiga ee wadankaasi Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Jathim Al Thani iyo wasiirka amuraha dibadda Abbas Araghchi, iyadoo diiradda lagu saaray dadaalada lagu dhisay baa la yiri ama lagu dhimayo xiisadda gobolka. kulanka ayaa ku soo beegmay xilli dagaalka iyo xiisadaha ku saabsan Iran iyo marinka Hormuz ay sii kordhayaan, iyadoo dhinacyada gobolka iyo kuwa caalamku ay wadaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in looga hortago inuu khilaafka isu bedelo dagaal ballaaran oo gacan ka hadal ah. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Qatar ayaa sheegtay in kulanka Tehran looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ixtiraamka madax banaanida iyo waliba dalalka dariska ah sidii loo xaq dhowri lahaa iyo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo amniga iyo xasiloonida. Qatar ayaa sheegtay in kulanka xoogga lagu saaray muhiimadda xorriyadda maraakiibta iyo isu socodkooda. Doha waxa ay ku boorisay baa la yiri dhinacyadu inay qaadaan tallaabooyin heerkooda uu sareeyo si looga badbaado dagaalkan in uu noqdo mid saameyntiisa leh oo mustaqbalka dhibaateyn kara shacabka wadankaasi, sida ay ku doodeenba qaar ka mid ah dadka mas'uuliyiinta ahaa ee kulankaasi ka qayb galay ee bedelayay dowladda Doha. ciidamada Mareykanka ayaa markii ugu horeysay soo diray markabka Theodore Roosevelt oo ah mid ka mid ah maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka ee wadanka Mareykanka uu leeyahay. markabkan ayaa ka soo gooshay dhinaca Mareykanka waxana uu ku soo wajahan yahay gobolka Bariga Dhexe. waa tallaabo kale oo cabsideeda leh oo muujinaysa dagaalka Bariga Dhexe uu soo laaban karayo, iyadoo dowladda Mareykanku ay isu dayaysa baa la yiri
dalka Iiraan inay dhinac kasta oo ay qalqal ka gelinayso ay sameeyaan. saraakiil Amerikaan ayaa sheegay in markabka diyaaradaha xambaare ee dagaalka Roosevelt uu ku wajahan yahay bariga dhexe xilli ay soo xoogaysanayso xiisadda la xiriira dagaalka Iiraan iyo xaaladda marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. tallaabada ayaa ku soo beegantay iyadoo gobolku ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadda gaar ahaan dadaalada Qatar ay wada baa layidhi oo lagu raadinayo wadahadal iyo xal diblomaasiyadeed. xaaladda marinka Hormuz ayaa weli waxay tahay mid aad u adag isla markaana aan la aqoonba sida mustaqbalka ay noqon karaan. markabkan ayaa ah fariin military oo ka imaanaysa dowladda Washington iyadoo madaxweyne Donald Trump uu weli ku dadaalayo sidii wadankaasi Iiraan uu u noqon lahaa mid ku qasbanaada inuu isdhiibo ama ugu yaraantiiba ay ciidamadiisu dagaalka joojiyaan. dhaqaaqida markabka Roosevelt ee dhanka bariga dhexe ayaa xoojinaya joogitaanka military ee Mareykanka ee gobolkaasi xilli Washington ay isku dayayso inay dheelitirto cadaadiska militariga iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya. dhaqdhaqaaqa markabkan ayaa sidoo kale loo arkaa fariin ku saabsan diyaargarow ciidamada Mareykanka gaar ahaan marinka Hormuz in uu wali yahay mid muhiim u ah amniga tamarta iyo ganacsiga badda. si kastaba haatee maashiyaha markabkan ee gobolka macnihiisu ma aha baa layidhi in weerar cusub oo rasmi ah uu bilaabmayo, balse waxa uu muujinayaa heerka diyaargarowga Mareykanku in uu yahay mid si aad iyo aad u heer sareeya oo laga baqayaba dagaalka haddii uu bilowdo dowladda Washington inay doonayso dirir cidiyo ku dirir ah ama cidiyo ku dagaalana. xilli dowladda Mareykanka ay si weyn ugu raad joogtay gabagabaynta colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo dalka Lebanon gaar ahaan ururka Hezbollah ayaa saaka lagu soo waramaya ciidamada Israa'iiliyiintu inay qaadeen guluf aad u xoogan oo ka taagan koonfurta wadankaasi. tani waa tallaabo kale oo lagu tijaabinayo awoodda dowladda Iiraan iyo sida ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiyiinta ay uga jawaabaan weerarka lagu soo qaaday mid ka mid ah xulufada ugu adag uu ku leeyahay gobolkaasi waa Hezbollah. wararka ka imaanaya gobolka bariga dhexe ayaa sheegaya in ciidamada cirka ee Israa'iil ay duqeymo ka fuliyeen meelo ka tirsan koonfurta Lebanon kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay Hezbollah inay jabisay xabad joojinta ama xaaladda amni ee ka jirta aaggaasi. raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in Hezbollah ay habeen hore u dirtay 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo qaraxyo waday baa layidhi dhinaca Israa'iil kuwaas oo lagu bartilmaameedsada ciidamada Israa'iil ee ka howlgalayay aagga buuraha ku yaala koonfurta wadanka Lebanon. hay-adda wararka qaran ee Lebanon waxa ay iyana sheegtay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay 2 jeer duqeeyeen kayn muhiim ahayd iyagoo adeegsanaya gantaalo sababay qaraxyo waaweyn iyo waliba buuro iyo dhibaatooyin kale oo xoog leh. duqeyntan kale ayaa habeenkii xalay ka dhacday baa layidhi dhulka u dhaxeeya deegaanka loo yaqaano Sutar al-Sharqiya iyo waliba halka la yiraahdo Mifdown. waxaan oo dhan waxay ku soo aadayaan iyadoo dowladda Washington ay dadaalka ugu badan ku bixinaysay in ciidamada dalkaasi ay noqdaan kuwa dhibaatooyinka ugu adag doonaya in ay ka jawaabaan. hase haatee waxaa muuqata in ciidamada Israa'iiliyiintu ay wali duqeymaha iyo dagaalka sii xoojinayaan.